waxaan ku noolaay qol mugdi ah waxaana dareemayay qolkaas inuu yahay mid ka mid ah xabsiyadii nafteyda aan ku iqaabayay ruuxii aan jeclaay muddana aan isjeclayn sidoo kale qudba salaastay uurkii 3 biloodana ii yeelay wuu iga tegay taleefanka ayuu iga dansaday qalbigayga nabarada waxa ay ku noqdeen nabaro mugdi ah iyo nabaro xanuun badan ayay dhahday waxaan idin soo gudbi doonaa qaybtii labaad oo aad u xiiso badan qisadii walaasheen Maryan ee ku dhacday qudba siro ayuu ugu guursaday wuuna iga dhuuntay uur 3 bilood ah ayaan leeyahay ayuu mareystay Maryan guud ahaan waxa ay ka soontay wixii cunto ahaa ayada oo go'aansatay in cunto oo idil ay ka doorbido nafta inay isdhaafiso sidoo kale Maryan waxa ay soo diyaarsatay sun in ay cabto laakiin saaxiibo waxa ay lahayd mar walba qadarta xusuusi jiray sidoo kale u sheegi jiray waxaan inay qadar yihiin laga yaabo taleefanka ruuxa uu ka dansan yahay in maalin uu soo wici doono Maryan qalbigeeda aad ayuu u jabay sidoo kale nolosheedu aad ayay isku bedeshay jir ahaan waxay ahayd gabar qurux badan xooga aad ayay u cayilneed midabkeedu wuxuu ahaa mariin oo xooga waa ay cadeed laakiin Maryan intuba hadda waxay noqotay qof nolosheedu ku dhameysanaysa fikir waa ay fikirtay ayada midabkeedu uu isbedelay jirkeedii oo dhan wuxuu noqday madow nuurkii inuu ka tagay ayaad moodaa cunto hadalkeeda iska daay cuntadii la keeno waa loo keenaa kadibna waa la qaadaa intii soo hartana xoolaha ayaa loo geeyaa biyaha cadaanka sidoo kale Maryan kama degaan oo markii ay cabto matag ayaa ka soo horeeyo taleefankeedu waa ay qabatay waa ay jijabisay neecle ayay ka doorbiday xusuusihii oo dhammaay inay iska tirtirto ayay isku dayday laakiin qalbiga mar walba wuxuu xasuusinayay halkii naxariista ahayd iyo sida fudud ee wiilkan iskugu aamintay Maryan waxay raadisay wiilal badan oo saaxiib ahaan loo baray laakiin wiil walba oo saaxiib loo baray ma uusan ahayn kii maanta marxaladan ka bixi lahaay waxaa jira 2 wiil oo dumaashi ahaan loo baray Salmaan iyo Maxamed labadoodii waxa ay ka doorbideen inay niyadu u dhisaan ayaga oo ku qanciyay in saaxiibkood dumar badan oo saan soo galay ay mar walbana xaaladii ku xumaa jirtay Maryan sidoo kale waxa uu sheegeen inay tahay gabadhii ugu dambeysay ee barteen mana doonayna ayay dhaheen in gabar kale oo sidaan loo xumeeyay aan barano laakiin Maryanay abaayo anigu waxaan diyaar kuugu nahay noloshaada inaan qayb ka qaadano haddii noqoto xag caafimaad xag dhaqaale xag saaxiibtinimo xag niyadis xag dhiirigelin wax walba inaan kuu sameeyno laakiin ma awoodno maanta inaan keenno taleefanku waa uu dansaday Maryan xaaladda ayaa ku cakiran tii ugu darneedna waxay ku nooleed guriga eedadeed hooyadeed gobol ayay joogtaa way iska danyar tahay aabaheed Ingiriiska ayuu jiraa waana xaalad kaloo cakiran Maryan aabaheed indhaha ma aysan saarin weligeed hooyadeedna waxay joogtaa mid ka mid ah gobolada Maryan oo sidaas oo xaalkeedu ahaa ayaa wax ay sameysay aqooweysay eedadii waxay kala kulantay hadallo badan haddii ay noqon lahaayeen dhaga hadal iyo ayadoo oo sidoo kale la uurkii oo ay mar walba hooshii guriga ay ku sii badanayso waxay uurka qarisaba ma la fahmin inkastoo gabagabadu xaaladdu ay aad u cakilmi doonto xitaa la dhahay gurigan iga bax oo dadku kuugu soo dhow raadso ayay sheekadu noqotay Maryan oo sidaas ahayd ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxay isku dayday in ay isdisho
sun ayay cabtay ayada oo galgalanayso ayaana waxaa la geeyay isbitaal waana la soo badbaadiyey. halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii labaad qisadii xanuunka badneed. qudbasiro ayuu qalbiga iiga degay, kadibna jaan iyo cirib halkuu dhigay ayaan aqoon waayey. intaan ku kulmi doono qaybtii saddexaad oo aad u xiiso badan, waa saaxiibkiin Mahad Socdaal oo idin nabadgelyo. qaybta commentiga ayaad noogu reebi kartiin ra'yi ahaan. haddii adigana ay kugu soo dhacday sidee daawo u heshay, qaybta commentiga noogu reeb si gabadhan walaasheen ah ayadana ay faa'iido badan ugu hesho.